waxa uu ku wareegaa caalamka isagoo raadinaya fuqaro iyo masaakiin aan wax garab ah haysan. isagoo isqarinaya wejigiisa aan la arkayn, waxa uuna wataa boorso calanka waddankiisa uu ku sawiran yahay. garan mayno waxaana magaciisa ahayn oo Qeyth ah iyo waddankiisa oo Imaaraat ah. barnaamijkiisa qalbi idmaan ayaa noqday mid caalamka oo dhan soo jiita. waa nin dhalinyaro ah oo Imaaraati ah, waxa uuna muddo yar gudaheed in ka badan 10 milyan oo doolarka Mareykanka ah u kala qaybiyey qoysas badan oo sabool ah, kuwaasi oo ku kala noolaa daafaha caalamka. 3 sano uu barnaamijkan wado ma jiro qof wejigiisa arkay ama aqoon dheeraada u leh. waxa uuna aaminsan yahay farxadda ama raaxada inuu helayo qofku marka uu wax la baxo. Qeyth barnaamijka khayriga uu noo soo jeediyo waxaa wata hay'adda Hilaal Axmar ee Imaaraati ah. fikirka barnaamijku waa in dad badan oo muslimiin ah oo iska dhibaataysan loo tago, kuwaasi oo u baahan garab istaag, kadibna lacag badan oo noloshooda bedeli karta ama wax badan u tari karta loogu deeqo. waxaa barnaamijka ku xirmay oo daawada malaayiin dad ah oo ku kala nool daafaha caalamka laga soo bilaabo waqtigii barnaamijka la aasaasay Ramadaankii 2018. welina barnaamijku guulo waaweyn ayuu soo hoynayaa. waxa ayna dadku mar walba isticmaalaan kelimadaha uu Qeyth isticmaalo sida annaas linnaas, addunya lista bakheer iyo kelimado fara badan oo kale. dadka barnaamijka daawada laba ayay u kala qaybsameen, kuwo ku farxa oo la yaaba sida wanaagsan uu wax u bixinayo iyo khayrka uu horumarsanayo, halka dadka kale ra'yigoodu uu noqday in barnaamijka Qeyth uu yahay barnaamij siyaasadeysan oo Imaaraatku suuradiisa ku qurxinayo isagoo iskaga dhigaya caalamka waddan dadka masaakiinta u naxariista una gargaara. dad badan ayaa isku dayay in ay raadiyaan xaqiiqadiisa iyo wejigiisa dhabta ah sida uu eg yahay Qeyth. ma jiro qof wejigiisa dhabta yaqaana iyo magaciisa oo dhammaystiran. sawir uu leeyahayna baraha bulshada lagama heliyo, xitaa Google-ka haddii laga raadiyo. lamana yaqaano Facebook ama Twitter rasmi ah oo isagu leeyahay. su'aasha dadkoo dhan isweydiinayaan ayaa noqotay Qeyth waa kuma. maalmihii la soo dhaafay ayaa baraha bulshada waxaa qabsaday sawir wiil ku labisnaa dharka Qeyth oo kale. wiilkaasi oo dad badan ay u qaateen inuu Qeyth yahay, balse sawirkaasi wixii la isla dhexmaro muddo yar kadib waxaa soo baxay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Az-Zurzuuri, kaasoo sheegay sawirkaasi inuusan ahayn Qeyth uu isagu yahay. waxa uuna bartiisa Facebook ku soo qoray: assalaamu calaykum, waxaan rabaa inaan idin caddeeyo sawir ayaantan baraha bulshada lagu faafiyey oo la yidhi waa Qeyth, balse sawirkaasi Qeyth maahan ee waa aniga. ayaan dhowd ayaan iska qaaday. dad ayaa intay qaadeen sawirka waxa ay saareen muusikada barnaamijka, waxaana la mooday inuu Qeyth yahay, balse Qeyth maahan. barnaamijku waxa uu noqday barnaamijka loogu raadinta badan yahay baraha bulshada siiba YouTube-ka iyo Google-ha. waxaa barnaamijku sanadkan kafaalo qaaday ilaa 10,000 oo agoon ah, laga soo bilaabo 1,000 agoon ah oo lagu soo kafaalo qaaday waddanka Urdun. waxaana jira dad badan oo xanuuno kala duwan laga daaweeyey sida wiilkii Lubnaaniga ahaa ee Maxamed Al-Rashaadi. weli waxaa jira dad fara badan oo barnaamijkan dacaayado kala duwan u soo jeedinaya, mana jiro qof caddayn dhaba ka haya inuu yahay barnaamijkan barnaamij siyaasadeysan. Qeyth weli kama uusan suulin inuu dadka fuqarada ah caawiyo. waxa uuna u badan yahay wadamada jaamacadda carabta sida Soomaaliya, Suudaan, Masar, Tuunis iyo kuwo kaloo fara badan. waxa uuna wadamadaasi kula kulmaa dad fuqara ah oo wejiyadooda farxadi ka muuqato, aaminsanna in alle maahane cid kale aan la baryin. dadka qaar ayaa farxad darteed la ooya marka ay arkaan qof aysan aqoon oo hanti intaa leegsiinaya, qaarkoodna sujuudu shukri ayay tukadaan. Qeyth ayaa lagu ammaanaa in aysan istustusid iyo isla weyni toona aysan ku jirin. waxa ayna dadku dhahaan waa khayr qabe alla fuqarada u soo diray. insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo barnaamijkan barnaamij sii socda.